wasiirka arrimaha dibadda dowladda federaalka waddanka Soomaaliya Axmed Ciise Cawad ayaa sheegay inuu kulan magaalada New York ahna caasimadda dalka Mareykanka uu kula qaatay kaaliyaha xogayaha arrimaha dibadda Mareykanka u qaabilsan dhanka Afrika oo uu ka codsaday inuu Mareykanku dhammaan dadka Soomaalida halkaasi ku dhaqan xayiraadda ka qaado. dhanka kale wasiirku waxa uu ka codsaday inay dhammaan beesha caalamka oo dhan ay aqoonsato baasaboorka dalka Soomaaliya. Axmed Ciise Cawad ayaa maray wakaaladda wararka halkaasi ku sugan ay wareysatay oo sheegay in isagu shirweynaha guud ee qaramada midoobay dhanka Soomaaliya u taagan yahay. wasiirka arrimaha dibadda dowladda federaalka waddanka Soomaaliya Axmed Ciise Cawad ayaa shirweynaha guud ee qaramada midoobay maanta galabnimada ka jeedin doona khudbad qusaysan dhanka Soomaaliya. wasiirka arrimaha dibadda dowladda federaalka waddanka Soomaaliya Axmed Ciise Cawad ayaa maray wakaaladda halkaasi ku sugan wareysatay oo sheegay inay khudbadiisaasi ku saabsan tahay Soomaaliya dhanka dhaqaalaha ammaanka iyo waliba baasaboorka Soomaaliya guud ahaan beesha caalamka oo dhan ay aqoonsato. wasiirka ayaa rajeynaya in laga aqbalo codsiyadaasi. waa Naasir Abdulqaadir Cabdiwahaab Naasir Talasame telefishinka caalamiga ee Badcast 24 TV magaalada Hargeysa.